بسم الله الرحمن الرحيم جمعة wanaagsan maanta waa jimco wanaagsan qayrteeda ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay assalaamu calaykum jumca mubaarak maanta walaalayaal waxaan jeclaystay inaan ka hadlo ilmo yariis oo Facebook la soo dhex dhigay ayagoo loo daaray laba shiishad loo kala dhiibay ilmo yariis oo aan 4 jir iyo waxaan ku qiyaaso 6 jir adiga meelahaas waxaan ku qiyaaso ilmihi shiishad inta loo daaray cabaya shiishadii ilmihi ay qufac ku waalanayaan haddana hees loo daaray oo heesta micnaha ku sii qaada markaa cabal jawigayga ma leegu nacaa waxaasi dhaqamadaasi wax micnaha qofkii aabba ah ama xanuunka dareemi karo awlaadiisa inuusan jeclayn baan uga soo hadlay maanta sidaas oo kale intaan micnaha uga danqanayaan uga soo hadlay walaalayaal kulay ilmahaasi ninkii dhalay hadduu nool yahay hadduu dhintana Allah u naxariisto haddii hooyadood ay hayso ama qofkii hayay oo la joogo oo waxaas ku sameynaa haday yihiin waalidkooda waa masiibo kaleente haddayse ahayn waalidkooda aysa ahayn ilmahaas waa in micnaha ay helaan waalidkii xanaanadooda iyo ama taxadirkooda qaadan lahaa oo xanaaneyn lahaa ilmahaas ma aysa helin waayo ilmo yariis oo laba shiishad inta loo kala daaray loo dhiibay ilmihii ay jiidayaan oo qufacayaan ilmihii yariiska waxaas oo kaleeto wax micnaha bini'aadanimada ku fiican maahan qofkii dhalay hadduu yahay ma u maleynayo hadday tahay hadduu dhalana ma aqaan akhlaaqdiisa wax ka qaldan taasaa ii xanuunjisay maanta inaan kasoo hadlo awlaadaas yariiska oo aan arkay haddii aad tahay hooyadii dhashay la joogto ama qof aad tahay bukuleeto haddii qof lagaaga tagay ama aad tahay ilmahaasi walaalayaal waxaa ku saaran daryeelka ilmahaas adiga ay waajib kugu tahay adiga mas'uuliyadooda qofka haya waalidiintooda haddaad tahay haddii aabihii uu nool yahay ilmahaas waa inuu ka taxadiraa walaal waxaa loogu dhaqmayo ilmahaas ilmo yariis oo sabi aan gaarin balwad iyo noocaasna aan aqoonin inta shiishad loo daar loo dhiibo laga duubo video oo la soo dhigo social media waa wax aad iyo aad micnaha u akhlaaq daran mana ahan micnaha dhaqanka islaamka kuma sugna waay inuu yariis oo aan gaarin sabi aan waxaasan shaqo ku lahayn meeshii iskuul iyo diinta la bari lahaa lagu cawaabi lahaa in shiishad inta loo daaro video laga duubo social media la soo dhex dhigo maxaa dareemaysaa maxay micnaha labada xab ma kala daaro lagu dhahayo waxaas waa wax la yaabo micnaha akhlaaq xumo soo waayadan dambe horta aan waxaan la yaababa wax badan ba akhlaaqdii iyo dhan baa soo halaabayso wallahi yani akhlaaqdii dhan soo halaabayso nooc walba ha noqotee akhlaaqdii ay soo noqonayso ani waxaas la yaabana walaalayaal ilmaha yariiska saqiirada in inta waxaas loo daaro la yiraahdo micnaha dhuuqa baashan jida waraa cunugta yariista xataa waxay leedahay baasha xashiish ma ku jira leedahay taada xashiish ku jira waana waxaan la yaabay bal fiiri Soomaali Maxameday waxa soo kaleento wax akhlaaq amiya ilaahay nagu dhaaray ilmaha saqiirada inta waxaas loo daaro la leeyahay fiiri arka indhiina ku arka maxaa u jeedaan si fiican u jiidana istiiwan qoysi waxaas ka warna ilaahay nagu dhaariye marka noocaas ilmaha saqiirada oo sabiga noocaas inta loo daaro marka camal jawigayga macaan miya raaxaday ma leeyo nacaa cunugan saqiirka raaxa iyo jawi muxuu ka yaqaan ilaahay kugu dhaariye day waalidkeed haday tahay oo ilmahaas ay waalidkooda ay yihiin waa wallahi billahi waxaan dhihi lahaa waalid aad iyo aad u akhlaaq xun waaye
inaad ilmaha waxaasoo kaleenta dhex bartaan ama dhex keentaanna ma ahan. waxaasoo kaleentana akhlaaq ma ahan. ha tusin ilmaha yararka waxyaabaha qaldan aad samaynayso inuu kaaga daysado ma ahan. soo cunugaas yarka hadda xashiishada u dhiibtay xashiish uu leeyahay, haddana xashiishaata adiga xashiishaa kuu daaran oo dhehaysaa cunugta yariis waa 2 gabdhood oo yariisa. bal fiiri, waa jiilka soo koraayo mustaqbalka ahaa oo lagu faani lahaa, ilmihii yararka oo lagu faani lahaa in la siiyo maanta shiishada loo daaro ya laga duubo video lasoo dhex dhigayo youtube baalka la yiraahdo social media facebook baraha bulshada laleeyahay markaan camal maan ka dhacaa raaxadee maa leegu nacaa maxaa raaxa ilaahay nigu dhaariyay maxaa raaxa cunug yariis oo saqiira inaad bakti u daarto la leedahay haddana raaxo. qoftaas weyn oo aqliga laho ag fadhiso oo qofka bini'aadan ma ah miya ayada mise hooyad ma ah miya? haddii ayada dhashana sidee weeye aqligii akhlaaqda ay ku dhaqmayso ilmaha yarka ula dhaqmayso? balse aabihii dhalay xaguu jira? hadduu dhinta allah u naxariisto, laakiin asaga mas-uuliyad ka saaran tahay ilmaha uu dhalay walaalo. waxaa mas-uuliyadda u saaran tahay bikaas wuxuu cunugaaga ku dhaqmaayo waa inaa adiga daba socotaa oo ilaalisaa cunuga akhlaaqdiisa. inaa hooyo fiican ay hesho waa cunuga, ma fahanti? alxamdulilah waxaas saqiirada ah waxa iyaga dembi kuma laha, laakiin qofka ag taagan oo warkaas u sheegayo oo arrinkan samayn dhahay ba akhlaaqdaas dembi ay ku tahay. bikaas asaga muusa ku xisaabtan cunuga yarka ah waa lagula xisaabtami doonaa adduunya aakhira kala jirtee. cunuga yarka waxa ku sameey haddii hooyada iyo isku dhacsan yihiin xataa ilmihii micnaha beryahan waxa soo baxdaba micnaha ilmihii in micnaha wixii la rabo lagu sameeyo. war cunuga adaa dhashay, haddaa dhashay ninkan micnaha wax walba in ka dhici karee ina cunuga aad micnaha aad cunug adi aad dhashay inaad waxyaabo qaldan aad ku samayso aad baraha bulshada soo dhigto aad tusaalayso dadka haddii adi aqli aad u malaysid ama wax fikrad fiican aad u malaysid wallahi horta aniga inta u badan haddii hooyadood inay tahay horta ama malaynaa hataa ma isleeyahay. kaas hadda hooyada dhashay waa qof naxayo, hooyo macaan inay samaynayso ma malaynayo koleyto. laakiin dad kale intoo looga tagtay iska dheh koley ani ma dhihi karo hooyadooda ay. laakiin hadday noqotone waxaan dhihi lahaa saas akhlaaq ma ahna waxaad samayseen. ilaahay laga baqo, ilmaha akhlaaqdooda hala toosiyo. noocyadaas oo kaleentana wax lagu dhaqmo maahane inaad ku dhaqantaanna maaha, waa qalad. waayo waxay qalad ku tahay cunug yariis oo saqiir ah shiishada intaa u dhiibtaan dhuuq la dhahayo ayagana aqli ma hayaan buruq siinaya. ilaahay ka cabsada, ilmaha akhlaaqda diinta bara, geeya dugsiyada iskuullada ka daaya akhlaaq xumada, ka daaya ilmaha aad baraysaan. haddana inta video ka duubtaan haddana baraha bulshada soo dhigtaan waxaas akhlaaq maqan. rabbiga laga cabsado, ilmaha ka daaya akhlaaq xumada. intaasaa marka aniga iga soo xanuunjisay, marka saas darteeda inaan uga hadlo. marka assalaamu calaykum. assalaamu calaykum akhyaarteyda. waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo share tan ii soo saartaan dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. khayr baan idin rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.